munaasabada caleemasaarka nabadoonka beesha reer ugaas oo ka mida beelweynta xawaadle nabadoon cali faarax aadan oo ka dhacday maanta magaalada beledweyne waxaa kasoo qayb galay odayaal nabadoono dhalinyaro abwaano aqoon-yahano iyo marti sharaf kala gedisan oo dhammaantood lagu casuumay madasha caleemasaarka wejiga koowaad ee munaasabada ayaa ku bilaabatay qada sharaf loo sameeyey dhammaan marti sharafkii kala duwanaa ee munaasabada kasoo qayb galay waxaana intaa kadib la gudagala jeedinta khudbadaha nabadoono odayaal abwaano waxgarad iyo marti sharaf kala duwan oo dhammaantood kala matalaya beelaha dega hiiraan oo munaasabada ka hadlay ayaa waxay u rajeeyeen nabadoon cali faarax aadan inuu noqdo hogaan daacada waxa ayna sheegeen in nabadoonkan ay gudoomeen halkan waxaan iskugu nimid caleemasaarkii nabadoonka beesha Faramage awal markii horeeto nabadoon Faramage wuu jiray ninkii Faramage oo hore cilmi siyaad nin sharaf leh oo shaqay jiro ahaa haddana wuu naga dalacay wuxuu aaday kili kashanaad macnaha shaqadiisii ayuu kororsi wuu naga dalacay waana maasiya shaqada u soo qabtay iyo shaqada u soo halgamay xawaaldoon u shaqeynaya markii ayaa la dhihin aaw nabadoonkaasi hawshiisa ilaa u fududeeyo hawiyo u dalacay waana wada ogtiin dhammaantiin haddana waxaan idin keenay nabadoon aan duubanay annaga oo Faramage ah oo wada taqaanaan cali faarax saacadda laga bilaabo ninkaas ayaa hawshii Faramage wadaayo waxaan midkana codsanaynaa inaad la shaqaysaan lana shaqay doontaan oo aan ku soo dooranay nabadoon cali faarax oo ku magac dheer ale ordaaye waa nabadoonka Faramage dhammaantiinna waa idin salaamaya sidaad u dhantiin culimaadudiin waxgarad odayaal dhalinyaro ganacsato haddii aanu ehelkaa markii horeba kuga arag akhlaaq iyo hufnaan iyo karti iyo awood iyo inaad tahay indheer garad kuma aamineenoo oday kaama yeesheen ushana kuma dhiibteeno kuma hadi ilaahay caliyow marka ku soo dhowow waxaa waaye sida gabaga lagu sheegay ama annaga afka aan ku sheegayno waxyaalo badan oo aad arki jirin arkaysa waxaa waaye afarta beri hore waa lagu cusbina laakiin hadhow ufay ku leeyihiin uftaada kula joog kirtaada kula joog adiga samirka dugso aadaan ugu faraxsanay hadda beelaha xawaadla ka mida haddii ninkaa baqabiila oo aan naqaano oo aan wada shaqay jirnay oo asalkiisa farciisa aan naqaano oo hadda anu hadda waxoogaa waa ka weynaan u malaynaya laakiin maraan aad u shano baawureed laahayn naloo keenayna aadaan ugu faraxsanahay waa soo dhawaynaynaa ninka nabadoonka walaalkeena nagu soo kordhay aad iyo aadaan u soo dhawaynaynaa waan u hambaliyaynaynaa waxaan rabaa inaan sheego marka wax yar meeshaan beel ma ahayn hadda waxa meesha joogo ummaddii reer hiiraana joogto reer hiiraana ninkii nabadoonoo wax soo kordhina waa u baahan yihiin annaga hadda haddaan idhaa annaga xawaadlaannahay ama samatalisaannahay meelayna laga ahaynaan joogaynaa ama aan tegi doonnaa ama aan tagnayba ninka nabadoonka waxaa laga rabaa inuu yahay nin ummaddaas u dhaxeeyo oo islaama oo garsoore siduu suuriyi u sheegayba waa layscaynaa waa laysxamanaa biiriqaato waa la leeyahay bacoo wataa waa la leeyahay laakiin waxaa ka soo haraayo ilaahay dartiis ninkii ummadda ugu shaqeeya cali faarax waxaan leenahay ku soo dhawaaw ummadda islaamka ilaahay dartiis ugu shaqeey annaguna waa kula shaqaynaynaa walaalkay noo soo kordhaa tahay horta waxaan leeyahay ninkaa la doortay oo maanta beesha duub looga dhigay oo naqiibka ah ilaahay subxaana wa tacaala u baryaynaa ilaahay maarta hala jiro waddada toosan kii uu ilaahay ku hagaajiya allah ka dhigo annaguna waa u ducaynaynaa ogow xawaadlo maa waxaa lagu duubay gobolka hiiraan iyo islaamka oo dhan aad ulilo markaa saariya maanta waa maalin taariikhi ah waa maalin taariikhdu ay ku beegan tahay 21 maarso sooma 21 maarso waa maalin aad u qiimo badan oo bahweynta beesha reer ugaas ay noo keeneen nabadoon cusub nabadoonkaasoo la yidhaahdo cali faarax aadan ama cali faarax dhugad ama cali ordaaye nabadoonkaas oo beeshu sida ay noo sheegeen ay ku warbixiyeen ay soo caleema saareen ku soo tufeen taladiina u soo dhiibeen ayaga xaggooda markay ka soo dhammaatana waxay u soo gudbiyeen xawaadlo weyne iyo Soomaali weynta gobolka Hiiraan
markaan marka codkayga ka hadlo iyo aragtidayda ninkaas beeshu ay noo keentay annagu waa aqbalnaan leennahay waa qaadnaan leennahay waa soo dhowaynaynaahaan leennahay markaan ku daro wax yaroo dardaarana waxaan u malaynaa cali ordaaye wax yaroo dardaarana markaan ku siiyo marka ugu horrayso horta nabadoon islaamaad tahay nabadoon soomaaliyeedaad tahay nabadoon qabiilaad tahay nabadoon beesha xawaadlaad tahay intaa markaan ka gudbo waxaa lagu bixi doonaa 12 magaca ku soo dhowow waa qaadan cali faarax waa qaadan midda ninka la yidhaahdo abtigay cali ordaaye wuxuu wataa 2 magacoo wataa mid waxa waaye midda nabadoonnimada oo maanta heerugaasi u keenan waay waa nabadoon midda labaad waxa waaye haddee waxbaa halaabaa la yidhi saaxiibadiisa aaday u soo dhoweeyeen bacab iyo waxbaa la sheegay waxaad ka digtoonaynaysaa 2 magacood wata midkii heerugaasna waa wadataa oo yacni boqortooyada haddii ilaahay ku diiyo midkii nabadoonnimana waa wadataa waxaan leenahay soo dhowaaw sidaa darteed waan guddoonnay cali faarax intii guddoontayna waa ka midnahay gobolkuna waa guddoomiyey oo la keenay nabadoon cusub oo ay keeneen beesha faramage nabadoonkaasoo la yidhaahdo cali faarax aadan cali ordaaye haddii aan nahay odayaashii dhaqanka ee gobolka hiiraan waa soo dhoweynay cali faarax aadan maxamed ibraahim siyaad kalson TV beledweyne